raallina kama nihin in deegaanka Soomaalida uu ka dhaco isku imaatin lagaga soo horjeedo walaalaha iyaga Somaliland iyo kuwa kale deriska nahay. Waxaan rabaa maanta inaan si kooban uga hadlo arrimo dhex socday baraha bulshada labadii maalmood ee ugu dambeysay oo aan rabno inaan dareenka iyaga ka muujino deegaan Soomaali ahaan wixii nagaga aadan arrinka maadaama lagu tilmaamay in deegaanka Soomaalida hooshaas baraha bulshada maalmahan dhex wareegaysay inay deegaanka Soomaalida ka dhacday. Waxa deegaanka Soomaalida runtii uu mar walba ilaalinaya deris wanaaga walaaltinimada iyo cid walba oo xiriir walaalnimo nagala dhaxayso geeska. dabcan waxyaabaha baraha bulshada dhex wareegaya waxa weeyaan waxa la soo saaray maqaal ama bayaan warmurtiyeed hadba midkii loo qaato dhahayo waxa warmurtiyeed magaalada Jigjiga ku soo saaray beelaha dega gobolada Sool Sanaag iyo Cayn warmurtiyeedka oo kulay warbaahinahanaad xogtiisa ogtihiin lagaga hadlayo qadiyadda Somaliland iyo waxyaabo ku saabsan. waxaan cadeynaynaa deegaan Soomaali ahaan in uusan jirin wax kulan ah oo beelo ka soo jeeda Somaliland ay ku qabsadeen deegaanka Soomaalida iyagoo ogolaansho ka haysta maamulka deegaanka Soomaalida si walba. marka waxaan cadeynaynaa in uusan jirin wax kulan ah oo deegaanka Soomaalida ka dhacay oo ku saabsan gobolada ama Somaliland raallina kama nihin in deegaanka Soomaalida uu ka dhaco isku imaatin lagaga soo horjeedo walaalaha iyaga Somaliland iyo kuwa kale deriska nahayba. marka waxaan cadeynaynaa in uusan jirin wax kulan ah oo dhacay raallina kama nihin in uu kulan caynkaas lagu qabsado magaalada Jigjiga. sidoo kale Somaliland waxaan leenahay xiriir isku dhawaansho walaaltinimo wada shaqeyneed oo ma aragtay markii laga eego xiliyadii isku dhawaanshaha ama wada shaqeynta Somaliland iyo deegaanka Soomaalida waqtigii oo ugu adkaa xiriirka iskaashi ee Somaliland iyo deegaanka Soomaalida dhinaca amniga dhinaca iskaashiga horumarka iyo dhaqaalaha wixii wada shaqeyn ee derisnimo ay keeni karto walaaltinimo ah xiriir is ixtiraam oo wada shaqeyneed baa naga dhaxeeya. marka ma ogolaanayno cid ka soo horjeedo Somaliland mucaarad ku ah inay maaragtay deegaanka Soomaalida isku urursato arrintaana waxba kama jiraan ayaan leenahay. ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim. Dagaaran Media waa saaxiibka dadweynaha.